argagixisada sool dadkii ku laysaadlayd goormay soo gashay dalka madaxweyne horumaad sheegina goormay soo gashay su'aashaana jawaab u baahan dalku saddex golo ka tirsan yahay golaha sharci dejinta golaha xukuumadda iyo golaha garsoorka saddexdaa gole meel ay kaga tashadeen dagaalka sool iyo leynta shacabka sool wallo oo bilo oo talayna dhig ragga qaar golaha wakiilada fadhiya haddii boorama la garaaci lahaa kuwa reer booram cabaadi lahayd kaalaya inamasha golaha fadhiisanne waa xildhibaanada reer booram waxaad ku leedahay maxaa keenay in aynu shacabkeenna isqabanno laba arrimood oo waaweyn ayaa keenay halkii dadka shacabka loogu gurman lahaa waxa lagu bedelay in caadifadii hab qabiil la abaabulo oo xaafadaha magaalooyinka laga ururiyo reeraha baadiyaha geel iyo sabaayad laga ururiyo ciidanka qaranku ciidan sabaayad iyo loo ururiyo maaha geel xildhibaan maxamed abiib oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo qayb ka mid ah warfidiyaanka kula hadlay xarunta golaha wakiilada ayaa ka hadlay muddooyinkii ugu dambeysay arrinta ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaanu dhaliilo kala duwan u soo jeediyay xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isagoo ku dhaliilay inay ku fashilantay wax ka qabasho la'aanta deegaanadaasi uu dagaalku ka socdo waxaan xanuunka la wadaagayaa hooyooyinka odayaasha iyo carruurta maad aragtay waran daafaha gobolka Sool ee maad aragtay laga saaray guryahoodii xilliga adag ee jiilaalka ah xilliga adag ee sicir bararku jiro xilliga adag ee dhaxantu ay jirto aad iyo aad baan uga murugeysanahay qodobka 39 ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu sheegayaa wuxuu qeexayaa golaha wakiiladu tilmaanta guud ee golaha wakiilada markuu sheegayo wuxuu yiri golaha wakiiladu waa xubno ka wakiila dadweynaha guud sharciga iyo waajibaadka ay siinayaan dadka masaakiinta shacabka aanu hadlo waana qaybta koowaad ee xeerdejinta dalka wuxuuna u xil saaran yahay ansixinta xeerarka ogolaashaha iyo ilaalinta siyaasadda guud ee hogaaminta dalka maadaama uu ilaalinta siyaasadda guud iyo hogaaminta dalka u xil saaran yahay xaq iyo waajib baanu ilaahay inaan arrintaasi maad aragtay aan ka hadlo waxa 12 jirsaday dagaalka ku socda maxaa la yiraahdaa shacabka Sool su'aasha ugu horeysa isweydiinayna waxa weeye ma dagaal qaran baa mise waa dagaal sokeeye oo Soomaaliya dhexdeeda u dhaxeeya absolutely si saraaxa leh waxaan lahayn waa dagaal sokeeye oo Soomaaliya dhexdeeda u dhaxeeya way ma jiro oo Soomaaliland isma hayaan dawladda Itoobiya ma jirto oo Soomaaliland isma hayaan dawladda Soomaaliya ma jirto oo maamul goboleedkii Puntland ee jaarkeena isma hayno waxaynu saynaa shacabkeennii reer Soomaaliland ee ku jiray xuduudii 26 Juun 1960 qarankii xorriyadda ka qaatay dawladda Maxamed Ingiriiska waxaynu saynaa saxaaxayaashii heshiiskii 1991 shacabkii ka tirsanaa baynu saynaa waxaynu saynaa bil ka hor shacabkii reer Laascaanood ee cashuurta qarankan laga soo qaadiyay baynu saynaa cid kasta oo magac kale u bixisay waa been iyo waxba kama jiraan weeyii yaa ogolaaday in dagaal qaran la galayo haddii dagaal qaran la galayo dagaalka qaran xukuumaddu kaligeed ma goosato siyaasadeedana kuma salayn karta kaligeed dagaalka qaran waxa ogolaada wada jir fadhi ah oo golaha wakiiladu leeyahay inaanu dagaal qaran hayna waxay idin cadeynaysaa inaan ilaa iyo maanta laba gole oo dagaal hor keenay aanu jirin oo arrintaasi madartay xukuumadda oo ogolaaday in dagaal ka gasho maxaa keenay in aynu shacabkeenna isqabanno laba arrimood oo waaweyn ayaa keenay marka koowaad waxa keentay tabasho 12 jirsatay oo ahayd in Soomaaliland si xor ah oo xalaal loo wada yeesho taasi oo hirgelin waxa buray heshiiskii 19 la galay oo qodobadiisii waa laga baxay oo rag siyaasiyiin oo dana gaar ah ka baxay waxa laga baxay heshiiskii dawladdii lagu aasaasay wada jirka 1993 Boorame kaana waa laga baxay waxa kale oo laga baxay oo xukuumaddu ka baxday oo dambiga maanta Laascaanood taagankii ugu dambeeyay heshiiskii Caynaba ee la galay Khaatume State 2017 ee golaha wakiiladuna uu ansixiyay xukuumaddii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo aad iyo aad baan uga xumahay in Cali Khalifa maalmo badan Allah u naxariiste uu godgalay isagoo leh war waxaan doonaynaa Soomaaliland la wada leeyahay war meesha meel dheer baa laga day doonaa war haddaan heshiiska la fulin
oy duubantaho halkii dheereed uu cali khaliif ka digayna aragti dheeraaya anigu oo maxamed abiba anoon xildhibaan ahayn iyo anoo xildhibaanaba muddo badan baan ka hadlay war dalka in sida laga daayo oo kuraasida la wada yeesho shan tusaalaan bixinaya maanta nin kale cid baa baadil maad aragtay dheeli ma jiro waxa weydiinaya madaxweynaha jamhuuriyadda iyo guud ahaan shacabka Soomaaliland markaad hay'adaha amniga timaado hay'adaha amniga wasaaradda arrimaha gudaha kaalay saddexda mas'uul isku xiga waxay ka soo jeedaan magaalooyinka Burco Hargeysa iyo Berbera meel saddexda mas'uul oo kala sareeya waa wasiirka ku xigeenkiisa iyo agaasimaha guud shirkii boorama dabadeed ma ahaan jirin saddexda mas'uul saddexda gobol waxay ka iman jireen Hargeysa ama Burco awdal iyo Sool bay ka iman jireen labada tanan ee amniga qaabilsan ee midna wasirdoonka qaranka iyo midna booliska qarankuna iyagna waa la mid waxa yadna la mid ah ciidankii qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland intaasi saddexda magaalo sheegay bay ka soo jeedaan magaalo kale oo hay'adaha amniga xilka haysaana gobolka ka soo jeedaan ma jiro u kaalay hay'adaha maaliyadda wasaaradda maaliyadda waligeed saddexda mas'uul ugu sareeya saddex gobol oo kala duwan bay ka yimi jireen maanta saddexda mas'uul ee wasaaradda maaliyadda xilka haya waa saddexda magaalo ee waxay ka soo jeedaan Hargeysa Berbera iyo Burco ka soo jeedaan cid kale oo kuma tashaami jirto bangiga qaranka ee bangiga u kaalay maxaa la yiraahdaa bangiga dhaxoosina hay'adaha maaliyadda hay'adda ugu muhiimsan labaada saddexdaasina waxay ka soo jeedaan magaalada Hargeysa iyo gobolka Maroodijo kale cid kale kuma taraahdo hay'adda amaankana meega haysa hay'adda maaliyaddana meega haysa cadaaladda kaalay garsoorka gudoomiyaha maxkamadda cadaaladda ahna gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga ah gudoomiyaha ku xigeenka maxkamadda sare xeer ilaaliyaha guud saddexdaasina saddexda magaaleen sheegay ayay ka soo jeedaan kaalay wasaaradii aan wada lahayn ee aqoonsiga aanu doonaynay ee wasaaradda arrimaha dibadda saddexda ugu sareeya iyo saddexda safiir ee ugu mudan ee dalalka Djibouti Ethiopia iyo Kenya inta saddexdaasina waxay ka soo jeedaan magaalooyinka Berbera Burco iyo maartay Hargeysa dadka reer Sool ee dhibaatada ay maalintii dhaweytoole markuu bilaamayay dhibtu waxay ka bilaabantay aan ku daro madaxtooyada qaranka agaasimaha guud iyo madaxweynaha shaqada madaxweyne ku xigeenka taraxa cid kale oo taraxday ma jirto nimanka reer Sool shaqo kuma leh walaalayaal billaahi calaykum qaranka Soomaaliland laba doodooda waaweyn buu irkan jiray markuu Soomaaliya la doodayo dooda koowaad waxay ahayd dawladdii la wada lahaa bay Soomaaliya ka baxday oo dawlad Soomaali u gaar ah bay dhisatay 1960 markii dadka reer Soomaaliland ay dawladoodii intii ka xiyeen xamar geeyeen waa doodo madaxweynuhu way duuban tahay inaad soo qaadataanna waa rajeynaya isagoo la soobahaas keenay soo talabaad keenta waxay in shacabka loo adeegsado ciidanka qaranka iyo dadkii ciidamadii cashuurta la siinay shacabka loo adeegsado magaalo kasta oo Soomaaliland kamid ah shacabka loo adeegsaday ciidamadii qaranka hore waxa uu ogeydeen dad kartoon sito mudaharaad iyo walaalayaal doorashaan doonina ayaa halka laga toogtay 2 saacadood baa 7 qof lagu dilay mar labaad qof baa dhintay muhiima oo magaalada Sool ka soo jeeda oo dilal muddo badan soo taxnaa oo xukuumaddu waligeed aysan ka jawaabin hay'adaha amaankuna aanay ka jawaabin dhintay waxa ma aragtay loo qaatay sidii Hargeysa loola dhaqmay baa loola dhaqmay shacabkii baa ciidan la geliyay mudaharaadayaashii intaan dagaalka dambe dhicin 22 qof iyo 60 dhaawac ayaa ka dhashay halkaasaan ka hadlay maalintii Soomaaliya war joojiyaan ku war ka daayaan ku shacabka lama qaadan maanta taladeedii hadii maalintii la qaadan lahaa halkaynu joogno meynaan gaadhneen maanta waxaynu joognaa meel ay dhaawacmeen qab kasta iyo qadarin kasta oo aynu dunida ku lahayn ba dhaawacmay waxa dhaawacmay doodii aynu ku lahayn golayaasha waaweyn ee caalamka ee Soomaaliland nabadgelyada ay adduunyada ka iibinaysa u dhaawacmay waxa dhaawacmay xaaladda xuquuqul insaanka ee qaranka halkay ka joogan way dhaawacantay waxa dhaawacmay dood dadka Soomaaliya ka soo jeeda ay la qaateen walaalahooda gobolada Burco iyo Berbera ka soo jeeda Hargeysa oo ahayd ciidankii dawladda Soomaaliya yaa lagu laayay dadka waa run sheekooyinkii aanu maqlaynay iyo arrimihii dhiilada lahaa ee la nooga wariyay taariikhdii 1980 ilaa 1990 u dhaxaysay ee shacabka lagu sameeyay ee ciidankii iyo tawaagidii qaranka loo adeegsaday aad baan uga xumay ismanaan lahayn waligay taariikhdaas oo kala soo noqon doonta maanta taangiyaasheenii iyo ciidamadeenii qaranku shacabkeenii bay sariyanayaan magaalooyinka Sool iyo magaalooyinka loo simaadiyo guud ahaan gobolka Sool
bini'aadamku taariikhdu waa lagu cibro qaataa taariikhda madaxda dalka hogaamisa maxay ugu cibro qaadan waayeen dhibkii ay u taagnaayeen 1988 89 maxaa keenay maanta wax kastoo lagaga baxsan karaya inay kaga baxsadaan bay laakiin wataciyaha udunun waciya dhaga ilaahay waaniin baa waansan kumay waana qaadan waxay dhex fadhiyaan halkii uu siyaad bare dhex fadhiyay maanta ay dhex fadhiyaan welina fursad ayaan haysanaa welina fursad ayaan haysanaa inuu qaran ahaan arrintaa ku sixi karno aynu qaran ahaan ku sixi karno waxa xusid mudan nabadoonka ugu weyn ee maanta ka sool iyo Soomaaliland u dhaxeeya waa gudoomiyihii golaha wakiilada arrintiisa waxba lagama soo qaadini kolba dhan baa loo jiiraya kolba dhan ayaa loo jiiraya kolba dhan baa loo jiiraya haddii odayaal la dirayo haddii wasiir la dirayo waxay idin gudoomiyaha golaha wakiilada ma aragtay arrintiisa la tixgeliyo loo daba fadhiisto oo talada wax laga weydiiyo oo loo yeero maalintii dhawitoole markii madaxweynuhu dadka isugu yeedhiyay de wada tashimayna kulan de speech laga jeedinayo kana koran buu haday warbixin laga jeedinayay madaxweynuhu hadduu doonayo inuu wada tashi iyo shaqo qaran laga galo ka daayo warwareega golayaasha qaranka yimaado golayaasha qaranka fadhiisto dooda golayaasha qaranka dhexdiisa laga doodo xaaladda sidii loo waajahayo yaa isku haya shacabka gobolka Sool ma waxa isku haya argagixiso iyo ciidankii amniga Soomaaliland si cad baan u leeyahay maya waxay sayay shacabkii Soomaaliland iyo ciidamadii Soomaaliland baa isku haya oo qaran magac qaran sita waxa doonaya inaan cadeeyo ma beelaha iyo dadka reer Soomaaliland baa ku shiray dagaalka laascoonad lagu qaaday oo magacyada reeraha aad loo sheegay baa ku jira may waa siyaasad u gaar ah xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi golayaal qaran oo ku raacayna ma jiraan waa arki lahaydeen haddii golayaasha qaranku ay cod ka qaadi lahaayeen ku garab gali lahaayeen qabiilo ku shirayna saasoo kale ayaan u jirin laakiin dawladii la wada lahayo xukuumadii la wada lahaa ma aragtay dambiga lagu falayaa qof kasta oo Sool lagu mudnaa oo mudanta iyo muxtaramada Sool kamid aha wuxuu dhintay isagoo la Soomaaliland la wada leeyahay Soomaaliland la wada leeyahay ilaahay waxaan uga barayaa marxuumiinta dhamaantood inuu ilaahay u naxariisto maxay yihiin talooyinkaygu mudane madaxweyne Soomaalidu waxay tiraahdaa xaar muuqan doona sagaar asaasta laba jeer saddex jeer baad hadashay saddexda jeer iyo labada jeer aad hadashayba mar barra iyo gooniya cid ku hadashay meesha marka la leeyahay haddii nabad iyo dawladnimo laga doonayo waa khalad in lagu gafo shacabka iyo odayaasha iyo mudakarka haldoorka dalka madaxweyne oo lagu sheego argagixiso oo lagu sheego cid kale magala jaamicii nala joogay 3 bilood ka hor halkana yaa argagixisa maya magala jaamaca garaad caliga guud ee weligiiba saax dheer fadhiyay Soomaaliland haday u aqoonsanayso maxaa la yiraahdaa argagixiso maxay ugu aqoonsan weyday markuu saax dheer fadhiyay ma ninkii ganacsada ahaa ee saaxiibka ahaa ila Jabuutaawi 2 bilood ka hor halkan lahaa waryaada war magaalooyinkii kala dhan baad ganacsiga uga haysataan laascaanood la iidaaya lahaa makaasa argagixisa si cad baan u leeyahay maaha argagixiso waa shacabkayagii waa dadkayagii waa walaalahayo waa kuwii dalkani aanu laanto jiri karin weey maaha argagixiso maaha wax la qaad beesha caalamka iyo adduunyada ana u sheegaya maaha argagixiso markay xukuumaduhu fashilmaan waxay ku meereystaan waxyaabo aan ummadda ka soconayn Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo aniga iyo musharaxayga madaxweyne halkan ay hay'adaha ammaan ku sheegayeen inay argagixiso ka soo kaxeeyeen xamar oo hargeysa keenay oo cadow yihiin bay sheegeen maalin socodkood ma duubna soo saaro walaalayaal ma maalin boqolada ma aragtay ay sayaan ba argagixiso noqoto ma argagixiso waa xukuumadda fashilmaa ku kacsada awrta kelmadaha caynkaas walaalayaal wax la qaadan karana maaha waxa inta dheer dadka gobolka Sool 200 oo kun oo qof baan ku qadari karaa dadka ku barakacay dhulkaas dadka ku barakacay 500 oo qof baa dhaawacmay oo hal
maad aragtay gargaar oo caafimaad aan qarankeenu u fidinin ceeb bay nagu tahay inaan shacabkeenna intaan dhaawac iyo dhimasho u geysan haddana inaan gargaar u fidinin ceeb bay nagu tahay inaan qarankeenna dadka barakacay ee dhaxanta iyo gaajada iyo sicir bararka la silcayay marka horeba bannaanka loo saaray een busto haysan een biyo haysan een baad haysan inaynu haddana gargaar u fidin weynaa ceeb iyo sumcad darray nagu tahay ilaa maanta hay-adihii iyo kaydka raashinka qaranka iyo gargaarka ee ay ninkii halkan xinif iyo ay joogeen iyo faysal sheekh halkay joogaan maxay ka shaqeeyaan maxaa gargaar loogu fidin waa shacabka maxaa loogu fidin waa shacabka gargaar shacabkaasi walaalahayo waan la murugoonaynaa halkii dadkaa shacabkaa loogu gurman lahaa waxaa lagu bedelay in caatifada iyo hab qabiil la abaabulo oo xaafadaha magaalooyinka laga ururiyo reeraha baadiyaha geel iyo sabaayad laga ururiyo ciidanka qaranku ciidan sabaayad iyo loo ururiyo maaha geel miisaaniyad qaran baanu siinaa 7% miisaaniyadda qaranka ayuu ku shaqeeyaa mana aha in dadka shacabkaa la isku bahlageliyo oo xumaan iyo xafiirta laga abuuro dhexdooda ma qabo waxay ahayd cid kasta oo si gaar ah isku xilqaatay in ciidamada qaranka sabaayad suuqa uga ururiso in ceebta ciidanka qaranka laga leexiyo la yiraahdo sabaayad uma baahna ciidanka qaranku miisaaniyadiisa buu haystaa arrimaha caynkaas waa arrimaha larka iyo xumaanaha xusoo kicinaya ka mid tahay ana laga daay shacabka reer Soomaaliland waxay haddaynu damqanayno waar wixii Soomaalidu weligeed ma waxay aanaysaa amba dhabe qaraarkii wayna dhadhamisameynaan yaxyaxayn war miyaanad wixii walaalka ku dhacay ee adiga kugu dhacay inaad markuu walaalka ku dhaco inaad ka xanuunsato rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri waa kalbuniyaan dadku waa sida dhismaha haddii midkiin mid uu xanuun qabto xumad fartayda saddex xanuunto jirkoo dhan bay dhammaystirtaa xumadda iyo xanuunka hooyooyinka gobolka Sooleysta inuu waxay ahayd maad aragtay ooyna qabto anigu maalintii mudaaraadku bilaabay hadal ugu dambeysay waxa filayeen golaha wakiiladu waajibkiisa guto oo qadiyada Sool iyadoo dalka taydi beersad kamid ah calankii dalka laga dajiyay shacabkii dadka la laayo dhiig u isgaaray waxay idin golaha wakiiladu fadhiisto ka hadleen ilaa maanta golahaas kama hadlin yuu shaqeeya golaha wakiiladu ilaa maanta waxa laga wareegeysanayaa iyadoo ajandaha aan ku ansixinay maxaa la yiraahdaa qodobada ugu horeeya ee ku ansixinay uu kamid yahay ka hadalka xaaladda guud ee dalka iyo qiimeynta gobolka Sool 5tii bishii labaad ee 2023 ka business committee gu ansixiyay maanta bisha waa mise 19 14 maalmood oo shaqo oo na soo maray golaha wakiiladu ma fadhiisan shaqana ma qaban ragga qaar golaha wakiilada fadhiya hadii boorama la garaaci lahaa kuwa reer booram cabaadi lahayd kaalaya in marka golaha fadhiisanay waa xildhibaanada reer booram waxay ku leeyahay maanta kuwa halka lagu xanuujinayana shacabkiina la madiina saad u qayl lahaydeen maalinta dadkiina wara kaale u qayliyo golaha ka shaqeeya kuwa reer gees haddii reer gees maanta inta ku dhacday Soomaaliya ku dhici lahayd waa qaylin lahaydeen waa kaale qayliyo koortaga balaayadu waxa la iska moosaa inta inay ku soo galin baa la moosaa kaale soo fadhiista golaha wakiiladan lahayo kaale qadiyadan aan ka hadalno aan madaxweynaha tilmaano ka qabanno dastuurka inoo gol inaan ka joojino oo inuu dhaahno madaxweyne dhig sharci baa lagu joojin madaxweynaha hadduu talooyinkiisa soo joodin ku joogsan waayo kaale yaan laahinta kuwana oo waajibkiina guta lagama dhuunto waajibka dawladda Soomaaliya sida maanta ragga qaar u leeyihiin waxa la rabaa in la qarameeyo dagaalka xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi gashay ayaa la rabaa in dagaal qaran laga dhigo halkii lagaga tashaday qaranku halku kaga tashaday war ma shacabkeena aan isayna dagaal qaran laga dhigay iyo fashilka xukuumadda dalkan dhibaataan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi hayna ma hayso haddaan xal doonayno xal noqon mayso madaxweynaha ayaa la kala garto iyo dalku saddex golo ka tirsan yahay golaha sharci dejinta golaha xukuumadda iyo golaha garsoorka saddexdaa gole meel ay kaga tashadeen dagaalka Sool iyo leynta shacabka Sool walo oo bilo oo talayna dhigay that's why looma aqoonsan karo dagaal qaran Ethiopia isma hayno looma aqoonsan karo dagaal qaran Djibouti isma hayno looma aqoonsan karo dagaal qaran nin kala la kala saaro wuxuu la mid yahay maalintii Hargeysa Burco la garaaciyo kuwii Maxamed Siyaad Barre garab fadhiyay lahaa ina Siyaad Barre u tagi doonaa Hargeysa oo iska adkaysta anu intaan Maxamed ay bahay maalinta haddaan noolaan laana waan diidi lahaa maantana waan diidaya haddaan maalinta noolaan lahaa shacabka reer Hargeysa reer Berberiyo reer Burco aan dhinacay ka galno raaci lahaa halkay ku dhimanayaan baa ku dhiman lahaa maantana reer Sool baan garab taaganahay oo la ka daayay xabadda iyo dagaalka waxaan ku soo gabagabeynayaa mudane madaxweyne waxa lagu dhiibay oo 4 jiil la soo kala dhaxlay dhammaystiran oo xuduudihiisu ay sugan yihiin
sanadkan iminkaan joognaa 3 sanadkii ku horreeyay markaa timid golaha wakiiladeed halka guurta ku khudbadaynaysa waanigi ku horfadhiyay waxa tiri nabadgelyada dalku way sugan tahay waxa gagixisiina kuma jiraan ilaa iyo ciidanku tukaraq meel ka shaysu gaaro way sugan tahay xuduudeennii bad argagixisada sool dadkay ku laysaalayd goormay soo gashay dalka madaxweyne horumaad sheegina goormay soo gashay su'aashaana jawaab u baahanta jawaab ayuu baahanta mudane madaxweyne ciidanka qarankuna ma aha inuu dadkiisa ay isku jabaan oo midi waa midi uu isku jabto iyada adigu waad gelinaysa wey inamadeenna ciidamada waxaan u samaysanay inaan cadowga kula dagaalanee inaan shacabkeenna kula dagaalano maalin walba nin qiimale iyo nin qaayali maad aragtay ay labada dhinacba ku dhimataan waxaan ugu yeedhayaa waa kugu dhimayo kaa dhime amarka lama qaato markuu khaldan yahay war ragga maanta madaxweynaha garab fadhiya ee excuse-ka u samaynayo kama duwanid kuwii excuse-ka u samaynayay dawlado badan oo dumay kama duwanid war maanta waa maalin maanta waa maalin war maantay u baahan tahay qabasho wixii dhacay uu dhacay haddaad nabadgelyo doonayso mudane madaxweyne ood wanaag doonayso talada aad isla qaadateen dadkii ugu horreeyay halkaasee guddoomiye golaha wakiilada raggaasi ka mid yahay ha la qaato guddi xaqiiqa raadin ha loo diro gargaarka ha la gaadhsiiyo ummadda biyaha ha loo fasaxo maad aragtay waxa imika ilaa maanta dagaal baa ku socda 500 qof iyo 100 dhaawac dhimashaa jira hal irbadii nagama gaadhno Soomaaliland leedahay la saxaawad nagama dishin haddayna shacabkaysan yarsayna marka haddaan inagii aanu diidanahay inaan gargaar gaadhsiino hay'adii UN wax ka warqabayna magaalada Caynabi eeriyada joogan sawirka ku hayo walaalayaal gurmadka loo fasaxo waxaan leeyahay shacabka reer Sool wixii gurmada idin yimaada eeda caalamiga iyo Soomaaliland idinka yimaada in aqbashaan oo dumarkii carruurta u sii deysaan ayaan idinka codsanayaa waxaan idinka codsanayaa inaan loo kala tagin iska qabashada iyo aragtida iyo sixidda maad aragtay xukuumadda Muuse Biixi dhibaan hayni dalka ma haysato dhibaatada ugu weyn dalka haysataana waa doorasho la'aan weey doorashooyinkii iyo sharci fulintii inta dhibaato ee madaxweyne Muuse inta ka dhacday intii doorashadu u difaaciyay ee uu kursiga ku dhaganaa intuu difaaciyay bay dambiyadaas oo dhaceen madaxweyne halka laga qaniinay waad garanaysaa halkii laga qaniinay ku noqo oo sharciga u soo noqo oo doorashooyinkii dardar gali oo ka faa'iideysan qaybsanaanta qolada ururada wadata iyo kuwa xisbiyadii hore wata labadaa isku garaacoogu madaxweynuhu ka faa'iideysan iyagana waxa leey waryaal la isku kin garaacine sidii la isku kin garaacay shacabkeenni baa dhexdeena ku dhintay idinkuna waxaan idin leeyahay oo kaalay oo arintaasi maad aragtay aynu ka wada fadhiisano cidii isxilqaamaysa arinta qabanaysa ha qabato adduunyadana waxaan ugu baaqayaa argagixisa ma joogto Soole shacabkaygi baa jooga dadka shacabkaygi aan inta anugu waa shacabkaygi way hal la soo gaaro beesha caalamka jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa dawladaha carabta ururka midowga Afrika igad dawladaha jaarka dhamaantood waxaan ugu baaqayaa in dadka Sool gargaar lala soo gaaro banaankay waran yihiin waa gaajo baqtiyaan biilaabo baqtiyaan colaad aan ku taligelin bay galeen aad iyo aad baad u mahadsantiin waa maxamed axmed cabdilaahi maxamed xudayfi wararka laanta afka Soomaaliga telefishinka CBA